رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حسن علي قير ayaa maanta bixiyay $317 Mareykan oo dib loogu dhisayo buundada degmada Baardheere ee gobolka Gado soo ay qayb uga qaadato fududeynta isu socodka bulshada iyo kobaca dhaqaalaha dalka. Ra'iisul Wasaare Khayre oo ka jawaabaya cabashadii ka timid bulshada Baardheere oo dhibaato badan ku qabay burburka buundada ayaa sheegay in madaxda qaranka ay yihiin adeegayaasha bulshada isla markaana laga maarmaan tahay inay wax ka qabtaan baahida bulshada sida ay u kala muhiimsan tahay iyo hadba inta ay leeg tahay awoodda dawladda. qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal oo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ugu tagay xafiiskiisa ayaa uga mahad celiyay sida uga jawaabay baaqi bulshada iyo bixinta lacagta dib loogu dhisayo buundada Baardheere oo muhiim u ah dib u kabashada dhaqaalaha, horumarka ganacsi iyo fududeynta isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha safarka u kala qaar ka mid ah gobolada dalka. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka mid ah mas'uuliyiinta ra'iisul wasaaraha ugu yimid mahad celinta ayaa uga mahad celiyay mar kale ra'iisul wasaaraha bixinta lacagtaasi dib loogu dhisayo buundada Baardheere. waxaa sida aad arkayseen maanta halkan aan ugu nimid oo annagoo ka kooban xildhibaano dhalinyaro ganacsato wasiiro aan halkan ugu nimid ra'iisul wasaaraha annagoo u soo gudbinay baaqii iyo cabashadii ka timid xaaladii buundadii Baardheere ee gobolka Gado. waxaan aad iyo aad aan ugu sharaxnay arrinta iyada ahayd asaga oo ra'iisul wasaaruhu ka jawaabay baahidii iyada ahayd oo taagneyd oo ahayd in buundadii Baardheere ay burburtay oo dayactir weyn u baahan tahay. muddaba waa laga soo shaqeynayay processkeedii dadka deegaanka iyo dadka Soomaaliyeedba kala duwan siyaabo badan kala duwan ay u muujiyeen qeyradooda iyo ficil ahaan codsi aan u soo jeedinay Prime Ministerka ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre hortanada ayuu uga jawaabay wuxuuna ku saxiixay qiimeyntii ay soo sameeyeen dadkii loo diray lacag dhan in lagu dayactiro $317,000 Mareykanka ah. waxaan uga mahad celinaynaa madaxda qaranka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre sida howlkarnimada leh go'aanka quruxda badan ay qaateen ugana jawaabeen baahiyaha dadka deegaanka gaar ahaan buundada Baardheere halkaas oo la ugu bishaareynayo dhammaan reer Jubbaland gaar ahaan dadka degan reer Gado gaar ahaan degmada Baardheere oo aan qiraayo maanta oo in lacagtaas ayada halkan lagu saxiixay shaqadina ay tahay in la bilaabo. waa maasantiin. dowladda Soomaaliya oo dadaal xooggan ugu jirta kobcinta dhaqaalaha dalka ayaa horey u ballan qaaday inay soo noolaanayso kaabayaasha dhaqaalaha dalka si loo gaaro isku filnaansho dhaqaale oo dalka u horseeda horumar iyo barwaaqo ay bulshada Soomaaliyeed hiigsanayaan. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.